السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته kusoo dhawaada janaalkayga Fardoos isku filan waa mar kale new video please haddii ay tahay markii kuugu horeyso oo janaalka soo booqato waxaan kaa codsanayaa inaad iskaraab gareyso asxaabtaada kale la sii wadaagto oo ku mahadsantahay daawashada muuqaalkan asxaabii soo dhawaada aad iyo aad ayaan idiin soo dhaweynayaa alxamdulilaah ilaah ayaa mahad oo dhan u sugnaatay isoo celiyey mar kale anoo caafimaad qabo waxaa rajeynaa idinkale inaa caafimaad qabtiin inta xanuunsan alla subxaana watacaala allah caafiyo inta dhimata alla subxaana watacaala allah u naxariisto inta safarka allah u fududeeyo qof walba oo muraadlena muraadkiisa alla subxaana watacaala allah u sahlo isku soo noqod wanaagsan asxaabey maasha allah tabaaraka allah ilaah odaa mahad oo dhan ku sugnaatay maxaa la dhahaa waqtigeeni waxaa la gaaray iskoolaadka la furaayo Masar 4 bilood oo fasax lagu jiray ilaahay subxaana watacaala fasax nabad noogu soo dhaweeyey oo noogu soo dhameeyey maanta waa school time maanta oo Arbaca ay tahay 17 bisha September maanta waa maalinta ilmaha iskoolka noqonayeen inkastoo dhammaantood ayna ku wada noqonayeen oo beri oo 18 ay ku wada laabanayaan insha Allah tacaala haduu ilaahay laakiin ilmaha qaar ayaa maanta ku laabanayo qaarkood isbuuci hore ilmaha loo furay laakiin khamiista ilmaha ugu dambeysa insha Allah tacaala wadanka Masar loo wada furayo iskoolaadka marka ilaahay subxaanahu watacaala waxaan weydiinayaa dhammaan awlaadeena oo dhan iyo awlaadal muslimiin oo dhan inuu ilaahay subxaanahu watacaala meel walba joogaan xifdiyo ilaahay waxbarashada u fududeeyo ilaahay diintiisa inuu jeclaysiiyo shabaabka dhalinyarada ilaahay subxaanahu watacaala waxaan weydiisanaynaa qaatumo wanaagsan ayaan weydiisanaynaa adduunka oo xumaado oo ujeedin marka ilaahay subxaanahu watacaala waxaan ka magan galeynaa wixii shar oo dhan sanadka cusub oo la galay ilaahay subxaanahu watacaala khayrkiisa allah na soo xijiyo walaalaha iskoolkiisa weydiinaya insha Allah tacaala waxbarashada Masar waan ka soo hadli doonaa hore in badan uga soo hadlay insha Allah tacaala laakiin maadaama ay hadda bilaabanayso iskoolka hadda la furaayo waxaan rabaa insha Allah tacaala inaan ka hadlo maanta arrin ku saabsan iskoolaadka oon maqlay sida hore idin la wadaagay iskoolaadka Masar aad u adkaadeen oo qofkii maxaa la maanta wadanka ku cusub oo iskool raadinayo iskoolaadka internationalka ma sheegayo laakiin iskoolaadka kale caadiga aad ugu adkaata dadka special kuwa Azhar marka Soomaalida hadda waxaa la dhahay wax aad u xun magaceena iyo sharafteena hoos u dilay inay sameeyaan oo iskoolaadka intay tagaan lacag siiyaan waxaasna wax fiican ma walaalayaalo inaan guriyihii lacag ku dhiibno iskoolaadka lacag ku dhiibno dhaqaatiirta lacag ku dhiibno subxaanallah wax walba inaan lacag ku dhiibno lacag wax ma waxayso wadan dhisan oo maxaa la dhahaa oo system la u imaanay systemkiisa marno walaalayaalo sideenaagta meesha fadhiso kuwa iskoolka receptionka ma hayna ku dhahay iskoolka raadso way ameenaagta meesha fadhiso lacag tiro badan u baraysaa hadhowti ilmaheena xataa uma fiicno waxaas because hooyada receptionka fadhiso oo lacagta siinayso cunugaada ku galaasiya ogaada iskoolka ilmahoodu dhigtaan marka laaluush la dhiibo meel walba aan laaluush ku dhibno wax fiican maaha laaluushkana waa xaaraan walaalayaal marka Soomaaliya aan ka digtoonaano haddii aad hore u dhiibteen ilaahay uga toobadkeen haddii had kadib aad rajeynaysid iska daa walaalayaal iskoolaadka yaana lacag barin wallaahi billaahi in badan leela wadaagay in iskoolaadka lacag la siiyo waa aragteen iskoola inta tagto wuxuu ku dhahayaa maahay haddana hadhowto qof u qaadana arkaysa waa u qaatay because qofku wuxuu siiyey marka ilaahay subxaanahu watacaala awlaada allah noo xifdiyo awlaadaada waxaa la raadinaysid waxbarasho waaye haddii aad sanadkan weysid sanadka kale ayay ku aadayaan ayagoo carabiga kuu bartay quraanka kuu bartay wadanka kuula qabsaday maxaa ku kadeeday oo iskool ugu ordaysaa midda kale wadanka haddaa ku cusubtahay waxaa ku wanaagsan wadankan wallaahi sareexa aad u stress badan yahay markii iskoolaadka ilmaha laga rajiskareynayo qof sabar labisaana xamili karto qof walba ma xamili karto marka saada wadanka uga cararinba registration iyo waxba isku aadine waxaa sameysaa daruus quraankaaga ka bilaab carabigaaga ka bilaab tartiib adigoo meesha la soo qabsatay kadib waxay
ilmaheena waxa maalin walba wadanba mar loo geynayo sida geed macsarka sas loola wareejinayo qof waxaa arkay 4 wadan isku martay walaalayaalow ilmaha yaa la wareerin ilmaha masaakiinta wadanba maalin inta laga dejiyo maalinba wadan laga dejiyo berri asigoo waxbarashana haysan diinna haysan maadina haysan dhulka gaalada lagu celina soo hadhowta cunugaas wuu halaabaa lagu dhahayaa soo yaa haleeya waalidka haleeya marka waalidiina ilaahay ka cabsada walaadiina u tura oo maxaa la dhahaa mustaqbalkooda fiiriya oo wadanba maalin aad degaysiin idinkana qarashaa idinka dhammaanaya walaadina madax xanuun ay ka qaadayaan marka insha allahu tacaala hadduu ilaah yiraahdo fiidiyooga xiga ayaan uga hadli doonaa qaymaha oo waxbarashada insha allahu tacaala hadduu ilaah yiraahdo masar wax walba way qaaloobeen maciishada hadday noqotay maxaa la dhahaa iskool hadday noqotay guri hadday noqotaba wax walba way qaaloobeen waana kasoo hadli doonaa insha allah soo dhawaada ayaan idin leeyahay asalaamu calaykum waraxmatullahi tacaala wabarakaatu